الله الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ندودا waxaan u malaynayaa wixii asayru ila Allah ku saabsisnaa in doora in sheekhu ka hadlay waqtiguna iska gabagabay yahay laba qodob ama saddex wixii aan ka gaarsiin karaan oran doona insha Allah taala أولا إلهي قرآن كوحنا وتلمامي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل إلهي سبحانه وتعالى وحنا تلمامي يجدك سينين الراعنه قف كستو مسلم بحق اللي نور دقاق بصارا وحكى الله ينوت المامي الظلمات كنين يتربدا يهين نور كنا متقلوية هي القرآن كان نور كو سجى مفرد صائرورة يخرج من الظلمات إلى النور نور كس لكن ومتكلية الصراط مرك اللي يري في اللغة العربية الصراط كوحلا يدها شتك حقافك ما تغني يعني طريق ير أما وضير ماها شتك بلارة أنا عندك اسكو عريري كريم الصراط اللي هذا في اللغة إلهي وحوت الماما يا جدك حقي سوك عامد بلارن oo dadkoo dhan qaadi kara inuu yahay taa macnaheedu waxa weeyaan ay culimadu yiraahdaan jidku waa ballaaran yahay laakiin ma yurdi Allah wa mutaaddid bay yiraahdaan jid ahaan waa ballaaran yahay waxa se Ilaahi raali gelinaya waa wax tiro badan طريقه wado dadka mari kara ama meesha qof waliba wuxuu Ilaahi ku raali gelinaya waa wax tiro badan waayo fil asl himamkeena ama hankeenu uu kala badan yahay mawaahibta waxa layna siiyay waa kala gadisan yihiin awoodda iyo kartida aynu leenahay waa kala gadisan tahay sawgeed baa Ilaahay wuxuu leeyahay wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa al-ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إلهي سبحانه وتعالى وكيد كيالك ودولك كلا نحلية ورفع بعضكم فوق بعض درجات وأنا إذن كلا كوريا ليبا إلهي سبحانه وتعالى حقكم السنين عقلكم السنين كرتدكم السنين أودها إلهي بحي سبحانه وتعالى كم السنين لكن عد والبوحي للسيال لغو اتحامية ليبلوكم فيما أتاكم تام عن هيد وحويان وأنو قوطب كانوا الصعداء طريق وين ودقاض يا وين قفلني مواهبك لقد سنة ولين السيء لكن وحين وبحنا كمسلمين أن يعترف بعضنا بعضا إنه اعترافنا وضدنا ودقاضه dadka badh ayaa Ilaahay futuuxaad fil ilmi wa ta'liim siiyay dadka badh baa aqoon badan alla siiyay subhanahu wa ta'ala u fudaydiyay say dadka wax ugu dhig lahaayeen waa nin muslim oo cibaadaadkii kale uu sameeyaa laakiin waxa ku badan mas'aladan baa agtiisa ku badan dadka badh ayaa Ilaahay wuxuu u fudaydiyay al-ihsaan wa naf'i an-nas inuu qofku samafalo dadka waxtarka bulsheed baa Ilaahay u fudaydiyay subhanahu wa ta'ala dadka badh baa Ilaahay u fudaydiyay salaad oo habeen taagan oo maalin taagan culimadu waxay yiraahdaan nabigu calayhi salaatu wasalaam 40 ragcadood buu sida badan tukan jiray bay yiraahdaan 17 farala 12 sunana 12 habeenkiya inaha marka la isku daro mala waa 40 intaas aan noloshiisa inta badan joogtada ahaan jirtay bay yiraahdaan laakiin dadka badh baa Ilaahay cibaadaadka u fura salaada u fura habeen oo dhan taagan maalintii taagan dadka badh baa Ilaahay soonta u furay oo adarkaysa iyagoo sooman habeen iyo yani waqti aad u tiro badan
isniin sooman khamiis sooman ayaamulbiid sooman maalmo kale sooman ilaahay subxaana wa tacaala soonka u furay dadka badh baa loo furay dikriga iyo wardiga iyo qur-aan akhriska iyo wixii la nooca dadka badh baa loo furay alamru bilmacruufi wanahyi can ilmunkar u taagan dadka inuu samuhun u sheego xumahana ka reebo dadka badh baa ilaahay u furay jihaad waxaynu u tilmaamayna waxa weeyaan abnaa'i saxwa alislaamiya hadday mashaarib kala gedisan yeeshaan oo qaarba ilaahay baab u furay baabkaa loo furay in lagu mahadiyaaba fiican si kale haddaan u tilmaamo saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay ahayn dad qudraadkooda iyo awoodahoodu kala gedisan yihin dhammaantood islaam bay u dadaalayeen laakiin fronts kala gedisan bay ku jireen dhammaantood islaam bay wada dadaalayeen laakiin meelo kala gedisan bay ku jireen tusaalaan idin siinaya abaa hurayra ama abu hurayra saxaabigii la odhan jiray wuxuu ka mid ahaa kuwii cilmiga loo furay xifdiga loo furay ducadii nebiga alla u aqbalay wakhti yar buu nebiga la joogay calayhi salaatu wasalaam kamiyada ugu badan ee axaadiis aynu haynana saxaabiga u axaadiis badan say culammadu sheegaan waxaa kaloo saxaabada ka mid ahaa khaalid binu waliid khaalid haddii khaswo iyo dagaal la soo qaado iyo goob muslim iyo gaal isku hayaan waa sayfullaahi almasluul buu nebigu ku tilmaamay seeftii alle ayaa lagu tilmaamay inuu yahay khaalid laakiin haddaad khaalid ku miisaanto xagga xadiidka oo tidhaahdo horta khaalid mise xadiid buu wariyey se abu hurayra misuu wariyey abu hurayra musnadu baqiya waxa ugu yaal baan u malaynaya xawaali 5,000 oo xadiid imaam dahabi wuxuu leeyahay khaalid binu waliidna musnadu baqiya waa musnadkii ugu weynaa 7 xadiid baa ugu qoran buu leeyahay saxiixaynkaba haddaynu namaadno khaalid 2 xadiid buu ku leeyahay abu hurayrana bukhaari oo quro 419 xadiid ku leeyahay yani labada saxiixaynba marka la isku daro khaalid binu waliid 2 xadiid baa kaga soo arooray bukhaari oo qura marka la tilmaamana abu hurayra 419 xadiid buu ku leeyahay idan haddaad baabka axaadiista timaado fariskeedu waa abu hurayra laakiin intaad ghazawaadka abu hurayra magaciisa maqashay marka siirada laga warramaya ama dagaalada laga warramaya ama mubaarasaadkii la isugu soo baxay ama dagaaladii ka dambeeyey imise goor baad maqashay abu hurayra oo goob dagaal wacdara ka dhigay muslimiinta ka mid buu haajihaatamaysa laakiin wax tilmaamanoo gaaroo laga tilmaamay inaanu lahayn baa suurtagala waxaan labadan saxaabi tusaale ugu soo qaadanaya waxa weeyaan fitradeenna sida ilaahay u abuuray ma sinna awoodda layna siiyey ma sinna qofba waxbuu ku fiican yahay markaa ka muslimiinka abnaa'i saxwa qayb baa inaga mida cibaadaadkoodu tiro badan yahay qayb baa inaga mida dacwadooda iyo dadka salaada tukanu yeedhkooda iyo warkaalaya tukadoodu tiro badantay qayb baa inaga mida masaajidka fadhido habeen iyo maalinba kutub akhriyaysa oo dadka caqaa'idda u saxaysa oo cibaadaadka u saxaysa oo walba saxaysa qayb baa inaga mida jahaatamaysa laakiin waa inaynu dareennaa cid waliba inay haqra min huquur lislaam ku jirto cid waliba inay ku jirto meel islaamku u baahan yahay in laga awdo waxay yidhaahdaan dadka kumalkaahi way yaryihin مثلا أبو بكر مركا لا سoo qabto ama cumar oo kale la soo qabto waa rijaalka kumalka baynu odhan karnaa xadiis le dagaal le maamul le soon le salaad le cibaado le nabigu calayhi salaatu wasalaam waa garanaysaan xadiidkii uu yidhi subax salaad subax inta la tukaday xalay yaa saaka yaa sooman oo uu yidhi abubakar anaa soomay yaa janaaso raacay uu yidhi aniga janaaso raacay uu yidhi yaa sadaqa bixiyey uu yidhi aniga afar shay buu nabigu weydiiyey afartiiba abubakar baa yidhi anaa sameeyey waana salaad subax yaa qofbu ka soo booqday anaa soo booqday buu yidhi dabeetana nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa aan sheegay kuma kulanto cid ilaa iyo jannadaa la yidhaahdaa maxay albaabkaa doonto ka gal idan dadka waa ka mid dad xaddulkamaal la odhan karo way ku